mudan ra'iisul wasaare sida u jeedid maanta waxaa noo dhagax dhigtay wadadii muhiimka ahayd halbowlaha u ahayd caasimadda Muqdisho wadadii Liido oo aan rabno in laami laga dhiso runtiina muddo maamulka gobolka Banaadir wuxuu waday sidii bilcada magaalada loo soo celin lahaa isla markaana wadooyinka aan aaminsanahay inay muhiim u yihiin kobaca dhaqaalaha siiba wadadan Liido kuma sii jirto waa wado runtii dhalinyarada iyo caruurtaba xeebta Liido aad taqaanay ee ku soo damaasha tagaan waa wado muhiim u ah ganacsatada oo ganacsato badan ay joogaan waa wado aan isleenahay dhismaheedu wuxuu qayb weyn ka yahay dib u kabashada dalka dib u soo celinta bilicda magaalada Muqdisho iyo horumarka mudan ra'iisul wasaare waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida aad mar walbaba u garab taagan tahay mashaariicda horumarineed in dalka oo dhan laga hirgeliyo gaar ahaan mashruucan isaga ah 25% ee qarashka ku bixi lahaana inaad adiga maaragtay noo bilowday annagana anagoo kaashanayna maamulka iyo shacabka ganacsatadana aan rajaynayno inta dhimanayna dhamaystirno wadadan waa wada halkan ka bilaabanaysa ilaa iyo isgoyska Kaaraan ku tagaysa oo 2 kiiloomitir ah waxaan rajaynaynaa mar alaale markay wadadan dhamaatana in ummaddu ay arki doonaan sidoo kale maamulka gobolka Banaadir wadadan waa wadadii shanaad muddo 6 bilood ah aan dhisayno taasna waa dardaarankii adiga madaxweynaha ee ahaa in dawladda hoose ay noqoto dawlad hoose shacabka u adeegta shacabka ku xiran isla markaana ka warqabta sidii muxuu ahaa kaabayaashii dhaqaalaha loo horumarin lahaa mar kale aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa mudan ra'iisul wasaare waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed ee ganacsatadana in ay wadadan waxaan rabnaa in wax Soomaali leedahay ay noqoto Soomaali dhisato inaan kaalintiina ka qaadataan oo barnaamijka iska xu qabso ee socdana ay ka mid noqoto aad iyo aad u mahadsantiin